kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo aan idinka soo gudbinayno magaalada Muqdisho wararka iyagana waxa ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay dagaalada sokeeye ee ka soconaya gobolka Sool waxaana ugu baaqay dadka halkaas ku dagaalamaya inay dagaalada nabad ku bedelaan madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Silaayo ayaa laga soo waramayaa maanta in uu ka kicitimay magaalada Hargeysa isaga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waxaana la sheegay madaxweynuhu inuu ku sii jeedo wadanka Ireland gacanka hadalkii dhex maray gudoomiyaha aqalka wakiilada iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalkaasi ayaa lagu soo waramayaa in la soo afjaray kadib markii dad waxgarad ah oo Somaliland ay arintaasi soo gabagabeeyeen howlgal ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya ayay ku sugeen ammaanka caasimadda ee Muqdisho waxaana afayeenka wasaaradda amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray digniino ku wajahan milkiilayaasha iyo dadka maamulayaasha hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho golaha madasha xisbiyada Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee wadanka Soomaaliya waxaana madashu ay soo hadal qaaday mooshinkii dhawaanta laga keenay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay ugu baaqeen ciidamada AMISOM inay dalka isaga baxaan iyagoo sheegay inay sameeyeen gabood fadlo lid ku ah xuquuqda aadamiga ciidamada wadanka Faransiiska ayaa duqaymo lixaad leh oo xagga cirka geysteen arintaasi waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha wadanka Faransiiska François Hollande uu hore ugu baaqay in ciidamada cirku ay ka qayb qaadan doonaan howlgallada ka soconaya wadanka Syria waxaana la sheegay in ay ka hortagayaan kooxda islaamiyiinta ah ee la yiraahdo Islamic State ee ka dagaalamaya wadamada Suuriya iyo Ciraaq intaas waa qodobada warka ugu waaweyn iminkana isagii oo fidsan Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo maanta shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka hadlay dagaalada sokeeye ee ka soconaya gobolka Sool waxaana ugu baaqay dadka waxgaradka iyo dadka halkaasi ku dagaalamaya in la soo afjaro dagaaladaasi laguna bedelo nabad wariyahayaga Hani Xaaji Maxamed ayaa warbixintan inoo haysa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay cambaareynayso dagaal beeleedka ka dhacay deegaanka Qorile ee ka tirsan gobolka Sool dadka dagaalka uu ku dhex maray deegaankaasi gobolka Sool ka tirsan ayaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka codsaday in ay joojiyaan dagaalka isla markaana lagu xaliyo wada hadal dagaal ka dhacay hoodka aan ugu baaqo dadka Soomaaliyeed ee runtii dagaaladaas يعني أي كلا جارتي إن نوت لو دارو يعني وح الله وحي دعي إن لا يسوي نغسيه أنت حرتي إلا بالواديو إن اسمه ده عقاشة تدخل معهم القوم له الزوجة كل يرون تيجي عموي كجيستان سيد ساعة على ده لو صعب جر لها جدك كنت وحي حرينا وهذا لو ده بيستر لها Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id kaga hadlay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo lagu wado inuu ka furmo magaalada New York ee dalka Mareykanka isagoona tilmaamay waxyaabaha dawladda Soomaaliya ay shirkaasi horgeyn doonto anagu hadda wadan la islaafay oo sharci ah oo legal ah road map noo qabanay hawadaas ma jirto anaga la imaanayna habka ay nala tahay inay u fiican tahay inaan u baxno qofan la socon dalkan xaaladiisan ogeyn road map intuu keenay kama saara kan shirka hadda soo waxa way xaaladda meesha ay marayso iyo anaga waxaan u baahnaan karnaa garab ahaan in ilaa dhamaystirka sanadka inta ka hartay nala siin karo annaga sheeganayna waxaan u baahannahay ayaguna waxay nagu tacqulay kala wada sheegay laakiin haweenaatee in road map looga hadlay iyo waxaas looga hadlay intuma ma aha Hani Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho
madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar ayaa lagu soo waramayaa in uu ka qayb galay munaasabad lagu weyneynayay guulaha ciidamada ammaanku ay ka gaareen ammaanka dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo la sheegay in kulankaasi uu ka dhacay magaalada Guday wariyaha halkaasi nooga soo warama ayaa warbixintan noo soo diray munaasabadan lagu maamuusayo guulaha ciidanka liyu boolisku ka soo hoyeen la dagaalanka hargixisada alqushash oo lagu qabtay magaalada Guday ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweyne ku xigeenada taliyaha ciidanka difaaca qaranka ee koonfur bari dalka Itoobiya Lieutenant General Abraha Waldemariam taliyaha guud ee ciidanka liyu booliska General Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale saraakiisha sare ciidamada difaaca qaranka ee koonfur bari saraakiisha ciidamada liyu booliska golaha wasiirada odayaasha haweenka dhalinyarada iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabadan oo halku dhag looga dhigay halganka tirtirada saboolnimada iyo argixisada waxaan dhidibada ugu aasaynaa horumar waara oo aan soo noqosho lahayn waxa ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo sheegay in halganku wali sii soconaya maadaama saboolnimada uu saldhig u argixisada iyo mushkiladaha jira loo baahan yahay in si rasmi ah looga qalin jabiyo iyadoo si xeel dheer ku dheehan tahay looga faa'iideysanayo khayraadka deegaanku hodanka ku yahay oo dhulka iyo biyuhu ugu horeeyaan maanta halgankeenu wali weeyaan waayo halgankeenu nabadiid kaliya ma ahayn ee wuxuu ahaa oo ku bilaabmay saboolnimada oo saldhig u ah argagixisiyo u baba meesha ay adeegsanayaan waa saboolnimada marka waa inaan saboolnimada ka qalin jabinaa oo aan waxa weeyaan horumar uga gudubnaa waxaan leenahay khayraad ilaahay nagu manaystay oo aad qaali u ah khayraadkaasi waxa weeye waxa adduunka ugu qaalisan waa dhul iyo biyo ayaan leenahay dhul iyo biyo ayaan leenahay dhul waxaan leenahay beerashada ku habboon waxaan leenahay biyo wabiyaal iyo togog iyo laago rugmada xilli kasta nabadiidka iyo argagixisada iyo horumardiidka furaha ama saldhigga koobaad ama harka ay harsadaan waa saboolnimada waa inaan saboolnimada ka qalin jabinaa aan xaqiijinaana horumar waara oo lagu arkin dalkeena iyo deegaankeenaba cid baahiyeysan ama cid gaajoonaysa waa in ay noqdaan shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya dad iyaguna qani ah dadka kale caalamkana caawiya ilaa inta deegaanka Soomaalida Itoobiya aan ka tirtirayno saboolnimada oo aan lagu arkin qof waxa weey marka saboola halganka waan wadaynaa marka waxa weeyaan waa inaan saboolnimada ku tirtirnaa halgankan ku tirtirnay nabadiidka iyo argixisada waa inaan saboolnimadana ku tirtirnaa waana sameyn karnaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxa uu xuseen guulaha laga soo hooyay argagixisada iyo nabadiidka si la mid ah loo baahan yahay in looga leebin karo faqriga iyo gaajada madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo dib u mulacsaday taariikhda walaaca badneed ee deegaanku ka soo xoobsiibtay ayaa sheegay in dhibaatooyinka amni xumada awgeed uu qof kasta walwal darteed uu dhabanada u haystay mar kasta shalay ayaa ahayd markii waxa weeyaan shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya degmo kale nagad uga gudbaynin goboluna u gudbaynin hooyadu ay walbahaar iyo waxa weeyaan silac ay maxaan ku raay ku noolayd qoyska wiilka ka baxa ee iskuulka uga baxa inuu ku soo nabad noqon iyo inuu ku soo nabad noqonayn intaba waxa weeyaan shalay bay ahayd madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar maruu ka hadlay furayaasha guusha sida ciidamada liyu booliska iyo xukuumaddu ay gacanta ugu dhiganayaan waxa uu sheegay inay ahayd in ciidanku qaatay go'aan xambaarsan wadaniyada ayna ku lamaantay aragti shacab helowga noqoshada cadowga iyo daweynta boogihii nabadiidku baday ciidanka booliska gaarka waxaan kala qaadanay hal arina oo ah waxyaalaha guusha koow sababay koow wuxuu ahaa aragti shacab inaad yeelataan shacabka waxaan ku heshiinay inaan shacabka uga gurmano dhibaatada nabadiidku ku hayo kufsi dil dhac iyo boob shacabka deegaanka Soomaalidu inuu xor yeesho oo uu gurigiisa xornimo kaga baxo xornimada ku soo noqo isagii hantidiisuba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa cadeeyay in guulaha iyo isbedelada ka jira deegaanka ay sabab u yihiin daacadnimada iyo wadaniyada ee ciidamada difaaca qaranku ku gardaadiyeen ciidanka liyu booliska taasoo ciidanka difaaca qaranku ay ku mutaysteen ammaan iyo bogaadin heer caalami ah isbedelka maanta ilaahay wuxuu sabab uga dhigay geesinimada iyo waxa weeyaan daacadnimada iyo muwaadinimada ciidanka qaranku ay muujiyeen iyo abuurista ay ku abuureen ama tababarka aan kala go'aa lahayn ee waxba isku lahayn ciidanka liyu booliska taas weeyaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa ka kici timay
magaalada Hargeysa ee Somaliland iyagoo ku sii jeeda wadanka Ireland. wariyaha iyaga Xamdi Xaaji October ayaa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay. madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta safar shaqo waxa uu ugu anbabaxay wadanka Ireland waxaana wafdiga madaxweynaha garoonka diyaaradaha ku sii sabootiyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland xubno kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale xubno ka kala socday labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyo mas'uuliyiin kale waxaana safarka madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan. madaxweynaha Somaliland ayaa intii uu ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay ujeedka safarkiisa. waxaanu maanta u baaxnaa waqooyiga Ireland halkaas aan macsuumad ka helay dawladda Ireland insha Allah taala Dubai baanu sii mareynaa waxaanu soconaa waa dalka dantiisa inagoo aynu saaxiibnimo iyo wada jir iyo wax ka raadinayna iyo wax wada qabsasho ka raadinayna insha Allah taala marka waxaan jecelaynaa halka dadka iyo dadka maca salaama ku dhaahdo ilaahayna waxaan ka baryaa inuu caafimaad qab iyo nabad qab isugu soo noqono. dhinaca kale ka hor intii aanu dhoofin madaxweyne Siilaanyo waxa ay garoonka diyaaradaha ay ku kulmeen madaxweynihii hore ee Somaliland mudane Daahir Yaale Kaahin. Xamdi Xaaji October telefishinka caalamiga ee Universal magaalada Hargeysa. madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Cadaad oo xarun u ah maamul goboleedkaasi. wariyaha iyaga Maxamed Maxamuud oo aadan ayaa magaalada Cadaad nooga soo diray warkan. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maalmahan safar ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka Galmudug. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. soo dhaweyn kadib ayaa madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu rafdiyeen kula hadlay qaybta nasiinada garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado wuxuuna ka warbixiyay shirkii wada tashiga Muqdisho uga soo qayb galay. safar gaaban ku tagay magaalada Muqdisho si aniga iyo intii socdaan uga qayb galno shirkii madasha wada tashiga ee lagu arrinsanayay 2016 wadanka dhankii waadi lahaa iyo qaabkii taladiisa ay noqon lahayd kulankaas ay ka soo qayb galeen dhammaan dowladda dalka ka jira iyo dowladda dhexe wada hadal dheer kadib waxaa lagu heshiiyey in la aasaaso madal ay ku midaysan yihiin ama kulminaysa dhammaan dowlad goboleedyada dowladda dhexe ee adeegyada kala duwan iyo bulshada rayidka si wada tashiga 2016 loo ballaariyo loona waasiciyo oo ay uga qayb galaan dhammaan gobolada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan uga qayb galaan si loo helo talo ummadda Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay oo looga gudbi karo 2016 sidaad u tihiin shirkii bishii hore waxaa la isla gartay oo qaybaha kala duwan ee Soomaalida iyo beesha caalamka la isla gartay laba arrimood mid waxay ahayd in wax kororsi la yiraahdo ama hay'adaha dawladda loo kordhinayo mandate-kii hore inaysan jirin iyo inaysan dhici karin one man one vote iyo codayn toos ah oo qof walba codkiisa u dhiibto ayadoo duruufaha dalka la eegay inaysan suurtagal ahayn. marka waxa laga arrinsanaya waxay tahay labadaas arrimood waxa u dhaxeeya in la yimaado qaab doorasho ay u dhici karto dalka uga dhici karto loogana gudbi karo marxaladda hadda lagu jiro loona gudbi karo hay'ado dawladeed oo la soo doortay oo dalka marxaladda soo socota. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maamulka Ahlu Sunna ee fadhigiisu haatan yahay magaalada Dhuusamareeb ugu baaqay inay soo fariistaan miiska wada hadalka si loo xalliyo khilaafaadka jira. waxaan runtii baaq nabadeed islaan walba u jeedinaynaa dhammaan maaragtay kooxaha iyo qaybaha kala duwan sida kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo aan runtii ugu baaqayno dhalinyarada la marin habaabiyey ku qowlan gumaadka iyo baabi'inta shacabka Soomaaliyeed inay falalkaas gurbacan ka waantoobaan shacabkooda dib u soo laabtaan shacabkooda maaragtay ay ka mid noqdaan afkaarta qaldan ee la soo minguuriyey ee laga keenay wadanka banaankiisa shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateynayana ay ka waantoobaan sidaas la mid ah waxaan rabnaa inaan baaq nabadeed aan u jeedino diinta Ahlu Sunna wal Jamaaca oo aan leenahay wada hadalka dawladda Galmudug ay ku baaqday nabadeed inay maaragtay ajiibaan nabadana ay qayb ka qaataan.
maxamed maxamuud owaadan tv-ga caalamiga universal cadaado. gacanka hadalkii u dhaxeeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka wakiilada ee Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa in la soo gabagabeeyay. wariyaha iyaga halkaas nooga soo warama Najiib Cabdiwali Xiis ayaa warbixintan noo soo diray. kadib markii dhawaan uu khilaaf xoogan oo sababay isgacansaar uu soo kala dhex galay shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ee gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo ku-xigeenkiisa koobaad Baashe Maxamed Faarax ayaa kalfadhigii maanta uu shirgudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada iyo labadiisa ku-xigeen lagu soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenkiisa koobaad Baashe Maxamed Faarax waxaana heshiiskii dhex maray gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa u dhaceen sida tan. heshiiska kadib waxaa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Cali Yuusuf oo sheegay inay soo afjareen khilaafkii u dhaxeeyay shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo sheegay in shacabka reer Soomaaliland guud ahaanba ka raali gelinayaan khilaafkii soo kala dhex gashay shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kalena sheegay inay gudagali doonaan kalfadhiyadii caadiga ahaa ee golaha wakiilada Soomaaliland. Najiib Cabdiwali Xiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa. golaha madasha xisbiyada Soomaaliyeed ayaa maanta kulan ay yeesheen waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee wadanka Soomaaliya waxaana soo hadal qaadeen mooshinkii dhawaan laga keenay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya sidaas oo kale madashu waxa ay ka hadashay ciidamada AMISOM oo ay sheegeen inay dalka isaga baxaan iyagoo sheegay inay geysteen gabood fallo ka dhan ah xuquuqda aadamiga. wariyaha iyaga Sakariya Maxamuud ayaa warbixintan inoo haya. iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu ka dhex jiray khilaaf siyaasadeed xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ku aadan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxa war-saxaafadeed ka soo saaray guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaano iyo shakhsiyaad u indhaduleela arrimaha siyaasadda ayaa maanta waxaa shir jiraa'id magaalada Muqdisho ku qabtay golaha xisbiyada Soomaaliyeed oo ka soo saaray war-saxaafadeed ka hadlaya dhinacyo badan oo ku aadan mooshinka iyo musuqmaasuqa dhanka siyaasadda ee ka jira dalka waxaana war-saxaafadeedka u akhriyay warbaahinta Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan barnaamij
golaha xisbiyada Soomaaliyeed oo ah gole ay ku bahoobeen inta badan xisbiyada dalka ka jira shir ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa ka wada hadlay xaaladda dalku marayo madasha wada tashiga qaranka mooshinka ka yaala madaxweynaha iyo aragtida xisbiyada Soomaaliyeed ee ku aadan 2016 xaaladda dalka uu marayo golaha xisbiyada Soomaaliyeed waxay dareemayaan in dalka Soomaaliya dhan kastaba uu marayo heerkii ugu hooseeyay muddadii 3 sano ahayd ee uu xilka hayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shacabka Soomaaliyeedna ay la soo diristay rajo xumo iyo niyad jab madax banaanida iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed dhaawac weyn gaaray taasoo ay sabab u tahay hoggaanka Soomaaliya oo jilicsan iyo faragelinta shisheeye ee ciidan iyo siyaasadeed sidoo kale war-saxaafadeedka waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka dhanka bini'aadanimada ay u geystaan ciidamada Amisom shacabka Soomaaliyeed iyagoona ugu baaqay in ciidamada Amisom ay degsadaan baleenkii ugu bixi lahaayeen dalka Soomaaliya Amisom iyo dalalka dariska waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan tacadiga iyo xadgudubka xuquuqul insaanka ah ee ay shacabka ku hayaan waxaanan diidanahay qaabka howlgalka ciidamada Amisom uu u socdo iyagoo meesha ay qabsadaan dhimasho iyo dhaawac kadib sabab la'aan uga baxayo waxaan ku baaqaynaa in Amisom la timaado istiraatiijiyad ay dalka ugu baxayso dawladeennana la timaado qaabkii ciidanka qalabka sida ay ula wareegi lahaayeen amniga qaranka beesha caalamka Soomaaliya waa dal xor ah oo ay leeyihiin dad xor ah kana baxay ku meel gaarkii waxaana lagu hayaa faragelin qaawan oo dhibaysa danta qaranka faragelinta waa mid ciidan mid boob lagu hayo khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyo ku xadgudub xuduudaha dalka ee badda berri iyo hawada sare waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo sida ugu dhaqsida badan faragelintaas 4 xisbiyada siyaasadeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee in xukuumaddu u gudbiso golaha shacabka xeerka xisbiyada si loo ansixiyo sida ugu dhaqsida badan sida uu qodobka 22 ee dastuurka Soomaaliya waxaa la joogaa xilligii loo midoobi lahaa si looga badbaado qataraha ku wajahan dalka iyo dadka oo ay ka mid tahay faragelinta shisheeye iyo hogaamadan halista geliyay madax banaanidii dalka iyo karaamadii qaranka dhammaad Zikri Maxamuud Universal TV Muqdisho madaxda haweenka gobolada Puntland ayaa lagu soo waramayaa kulan ay yeesheen inay kaga hadleen dagaalada ka soconaya gobolka Sool waxaana ay ugu baaqeen dadka dagaalamaya inay ka heshiiyaan culaadooda wariyahayaga Cumar Maxamed Soomane ayaa garow nooga soo diray shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta Puntland waxaa ka dhex muuqanaya xubnaha gudoomiyaasha haweenka 9 gobol ee Puntland iyagoo si wadajir ah baaq nabadeed ugu diray beelaha wadaaga ah ee xilligan ku dagaalamaya deegaanada Qoriley iyo Magacley ee ku yaala hawdka gobolada Nugaal iyo Sool ilaahu dagaalka naga jooji ilaahu marhabnee naga jooji ilaahay caadil casiiskii untayo ilaah qofura riixinka qalbiyada jirow qoonka dirirahaya rabbiyow qushuuc ku beer qoonka dirirahaya rabbiyow qaanacsi waqay qushuuceen qoryaha dhigeen quluubta colowda rabbiyow qabow ka gali qoysba qoys qaraabiye xidid wuxuu qoysba qoys la dago Qoriley iyo Magacley nabad waa dhaloo qumaa ilaahow qaadir ducadayda iga ajiib walaalayaalow joojiya waxaad wadaan walaalayaalow ha ka oohinina hooyooyinka walaalayaalow ha ka oohinina caruuraha waa in la soo taabtaa meesha waa in la soo afjira arinta waa in ina ka soo gabagabowda waa in ilaahayna ka barina inuu ina ka sar qaado dhammaan waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay dhibkaas haynoo ka miciino waad aragteen 9 gobol ee Puntland gudoomiyaashoodii ayaa gobolka Nugaal maanta jooga waxayna u soo kaceen gobolada waxay uga soo kaceen waa Sool waa Sanaag waa Highland waa Bari waa Karkaar waa Mudug maxay u yimaadeen waxay u yimaadeen dhibaatada dhacaysa walaalayaal waxa fiican ilaahay subxaanahu wa ta'ala in laga xishoodo in la xisaabtamo bal maxaynu ku diriireynaa bal barkade maxay sheegtaa dhul muxuu sheegaa maxaan ku sheeg waxaan macalanahay masqaala darati dadku in xisaabtama fiican dadku diin buu leeyahay caqiido buu leeyahay
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta puntland mawlid abukar abkey ayaa dhankiisa warbaahinta u sharaxay ujeedka shirka jaraa'id iyo muhiimadda in la joojiyo dagaal beeleedka dhiigga uu ku daadanayo. baaqayagu maanta wuxuu ku wajahan yahay sidii dagaalka lagu joojin lahaa. dagaal wiil kuma dhasho ee wiil baa ku dhinta. muhiimaduna waxa ay tahay dhiig daata maanta faa'iido inuu kuguma jiro. meel walba cadowgeennii baa taagan. cadowguna inagu ina ku wiirsanayaa. nin walbana waxa ay tahay muhiimaddu waxa ay tahay dee cadowgaaga cadowgiisa waa walaalkaabay dhaan Soomaalidu. muhiimaddu marka waxaanu leenahay war meel walba cadow baynu leenahay. afarta koondar cadow baa ina ka xiga. walaalayaalow iyo ilma adeerayaalow xabadda ha la joojiyo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta puntland nuur axmed yuusuf ayaa xubnaha haweenka isaga kala yimid 9 gobol ee puntland uga mahad celiyey sida ay maanta dareenkooda uga muujiyeen joojinta colaadda u dhaxaysa beelaha xilligan dagaalamaya. waxaan aad idinku mahad celinayaa sida qiirada leh, wadaninimada leh, ehelnimada leh baaqiina aad u jeediseen walaalaha dadka ah oo halkaa ku diriraya oo ayna xanuujinayso colaadiinnu. aad baad ugu mahadsantihiin. shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenka madaxweynaha puntland injineer camey ay gaareen qayb ka mida goobaha xiisadda iyo dhilada colaadeed ay ka taagan tahay iyagoo ku baxay dejinta iyo qaboojinta xiisadda beelaha u dhaxaysa iyadoo weli aysan muuqan xal waara oo laga gaaray dagaalada soo noqnoqonaya ee beelaha oodwadaaga u dhaxeeya. cumar maxamed soomane, universal TV, garowe. howlgal ballaaran oo ay ka qaybgalayaan ciidamada nabad sugidda Soomaaliyeed laguna sugaya ammaanka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dhaceen isgoysyada waaweyn ee ku yaala magaaladaasi. afayeenka ciidamada amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu soo saaray digniino ku wajahan milkiilayaasha iyo dadka maamula hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho. wariyahayaga Cabdicasiis Ibrahim Okay ayaa warbixintan inoo haya. ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo istirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa howlgallo baaritaano ah ka sameeyay isgoosyada Bakaaraha, Siinay, Sanca, Taraboonka iyo qaybo ka mid ah xaafadaha Hurwa oo ay saaki baaritaanadaasi ka socdeen. baabuurta dadweynaha kuwa sida gaarka loo kaxaysto boorsooyinka iyo waxyaabaha daahsoon oo ay dadka gacnaha ku sitaan ayay ciidanka hay-adda NISA baarayeen. afayeenka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa sheegay in maamulada iyo milkiilayaasha hoteelada Muqdisho laga doonayo inay mas'uuliyad iska saaraan ammaanka oo ay dhaqan geliyaan heshiisyadii horey ay ula saxiixdeen wasaaradda amniga. afayeen Maxamed Yuusuf ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabooyin ay dowladda ka qaadi doonto hoteelada haddii aanan buuxin shuruudaha ammaanka. hoteelada waaweyn ee ku yaala Muqdisho wasaaradda amniga qaranka iyo wasaaradda amniga gudaha iyo hoteelada waxaa yaalay agreement aan jiray heshiis dhex yaala jiray. waxaan rabnaa hoteelku inuu noqdo waxa loo yaqaan professional, inuu noqdo hotel ka dhameystiran dhan walba amniga. adiga mas'uulka ah dadka degan iyo nolosha dadka hoteelkaas imaanayo dhan adiga mas'uulka ah qofka hoteelka iska leh. waxaan rabnaa waxyaabihii aan ku ballanay ee golaha wasiirada ay baasgareeyeen siyaasadii sugista amniga hoteelada ee golaha wasiiradu ay baasgareeyeen. waxaan ka rabnaa in hoteelada kuwa aan samayn way is ogyihiin annaguna waa ognahay inay sameeyaan. kuwii aan samaynin waxaa dowladda Soomaaliyeed ay ka qaadi doontaa tallaabo ku aadan. wasaaradda amniga ayaa u mahad celisay ciidamada hay-adaha ammaanka dowladda oo si xilkasnimo leh maalmaha ciidda u xaqiijinaya ammaanka caasimadda. si nabad ayay ku soo gabagabowday. waa uga mahad celinaynaa guushaas runtii ciidanka amniga ay u soo hooyeen ummadda Soomaaliyeed. waxay ahayd ciid ka duwan ciidihii hore. waxay ahayd ciidda kaliya xataa ilmaha darbijiifka loo yaqaano ee farxadda ummadda ay ciidayso ay ka qayb qaateen ayagoo dhar cusub loo iibiyey ayagoo maxaa la yiraahdaa ku ciidaya meelaha dadku isugu yimaadaan ku damaashaadaya. sidoo kale ilmihii agoonta ahaa ee xareysnaa ayaguna sidaas si la mid ah ayay maxaa la yiraahdaa u damaashaadeen. way ka duwan tahay ciidihii hore. si kastaba iyadoo ay jiraan dadaaladaasi lagu xaqiijinayo ammaanka haddana waxaa dhacaya mararka qaar qaraxyo iyo dilil. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okay, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. wararka kale ee wariyaasha iyada noo soo dirayaana waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo weheliyo taliyaha guud ee ciidamada badda Soomaaliland Sareeye Guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa waxay maanta si wada jir ah u dhagax dhigeen taliska guud ee ciidamada badda Soomaaliland uu yeelan doono.
munaasabadii dhagaxdhigaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland taliyayaal iyo weliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada badda Somaliland Sareeye Guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane. maanta wasiir waxa noo dhex dhigto taliskii ciidanka baddu ma laha hoy kuma la Hargeysa kiran ku jira waxay noqotay mar haddana kira ku jiro inaan meeshaan doonaan u carro dowladda Ingiriiska ayaa guri yar noogu ballan qaaday dhismo yar oo fiican mid weyn waxaan ka dhisi doonaa berbera kii weynaa waxaan u daadsanay inaan badda ku jeesano maadaama badda ilaalin u baahan tahay halkanna waxay noqon doontaa meeshaan ciidan ku run doono dee waxaan doonaynaa inaad maanta mataqaanaa aad nagu ogaato inaan halkaa fariisin ku yeelan doono waxaan aad ugu mahad celinayaa ciidanka militariga gaar ahaan taliyahooda oo barta noo asteeyey inkastoo ay naga xigin oo tahay dhulkii dowladda haddana sidaa noo asteeyey ragnimo nagu siiyey dhinaca kalena isna waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde. ciidamada badda Somaliland saraakiisha kale iyo dhammaan ciidanka badda Somaliland runtii waxaan ugu awguuranayaa maanta headquarterka kan looga sameeyay Hargeysa oo runtii muddo dheer iminka aan daba taagnayn sidii loogu dhisi lahaa ciidankaas saldhig weyn oo xaruna oo ay ku yeeshaan Hargeysa iyo Berbera mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dowladda Ingiriiska oo runtii wax badan naga taakulaysay oo uu ka mid yahay dhismahan maanta aynu dhagax dhignay iyo hawlo kale oo fara badan oo nala qabtaan haddii ay tahay dhinaca amniga iyo haddii ay tahay dhinaca badda labadaba. dhismahani loo yigleelayo ciidanka badda Somaliland ayaa waxa uu noqon doonaa taliska guud ee ciidamada badda ee ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa iyagoo taliska ugu weyn ciidamada baddana laga dhisi doono magaalada xeebeedka Berbera. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa. fanaanka caanka Nimcaan Hilaac iyo qaar ka mid ah kooxda Geeska Afrika oo maalmihii ugu dambeeyay bandhig faneedyo ka dhigayay magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa waxaana la sheegay in ciidamada ammaanka ee Somaliland ay xabsiga u taxaabeen. qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si kulal arintaasi uga jawaabay. wariyahayaga Hani Xaaji Maxamed ayaa warbixintan inoo haysa. qaar ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska ee dhawaan soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho isla markaana bandhig faneed ku soo bandhigay caasimada dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa maanta markii ay dib ugu laabteen magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland halkaasi oo kooxda xidigaha geeska u ahayd saldhigooda waxaa xabsiga u tibaaxay ciidamada Somaliland. fanaaniinta lagu xiray gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaa ka mid ahaa Nimcaan Hilaac, Xamdi Kuwiin, Cabdiraxmaan Oday iyo Maxamed Bakaal Ciro oo dhammaantooda fankooda aad u xiiseeyaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa. qaar ka mid ah fanaaniinta xidigaha Soomaaliya ayaa aad u cambaareeyay tallaabada ay qaadeen ciidamada booliiska Somaliland. fanaanka Dayaxdal Nuurshe ayaa ka codsaday madaxda Somaliland in xuriyadooda ay dib ugu celiyaan fanaaniinta xidigaha geeska ee maanta lagu xiray gudaha magaalada Hargeysa. horta anaga waxaanu nahay siyaasad kuma jirno, waxaanu nahay fanaaniin xidigaha geeskana halkan waxay u imaadeen inay taageerayaashooda qanciyaan wax siyaasad lug ay ku leeyihiin ma laha. halkan bay yimaadeen bandhig faneed bay ka qabteen way bixeen Hargeysa tageen kuma xirno Soomaaliya iyo Muqdisho iyo Hargeysana farqi saas u dhaxeeyo oo maanta jiro uma maleynaa inuu jiro waayo aniga codsi badan oo iga imaaday faaniskayga jooga Hargeysa waxaan rabay inaan Hargeysa tago laakiin maanta hadayba maxaa lahaa sheekadu sidan tahay iyo xariga haday tagto waxaan ka codsanayaa Somaliland in ciqaabta laga qaado xidigaha geeska. waxa kale saakay markaan saarayna diyaaradda shakhsiyaad aan anaga garanayno oo Muqdisho ka baxo u socday Hargeysa ayaa jiray oo ahaa marka ayaga maxay ka duwan yihiin rakaabkaas u socda Hargeysa. taageerayaasha kooxda xidigaha geeska ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhankooda dalbaday in fanka Soomaaliyeed aan la siyaasadeenin. runtii waa ku faraxsanay inay Muqdisho yimaadaan fanskooda ay qanciyaan sida ay fanan kale ay ku soo bandhigeen Nairobi, Jigjigo, Djibouti ilaa iyo Dubai qaar kamid ay tageen kullina ay u tagayeen dad Soomaali ah oo dhageysta heesahooda ku enjoy gareeya codadkooda jecel taageero ah ayay u tagayeen. waxaan ka codsanayaa
dadka waxay ahaayeen fanaaniin fanka iyo siyaasadana waa in la kala fogaa sidaas banaan siyaasad waa siyaasad fanna waa fan fankana xuduud ma laha sidiisa banaanba waa dad nabadda jecel fanka mar walba ayagaa nabadda dhaliya in ay yacni midabta kor gooni loo suubsado maxaad muqdisho u tagteen sida hadalku u dhacay hadda in lagu xiro qofta waa qalad baan u arkaa waanan cabaareynayna haddii aynu nahay taageerayaasha anigoo ku hadlaya codkooda meel walbay joogaan waxaan leenahay si bilaa shuruud la-aan ha la soo deeyay ani xaaji maxamed universal TV muqdisho wararka kale ee wariyaasha iyada noo soo dirayaana waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada Somaliland haya kulmiye maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco hogaamiyaasha dhaqanka garabka haweenka xisbigaasi siyaasi Khaliif Xinwaal iyo madaxda ururka qaranka Naw ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha cusub ee xisbigaasi gobolka Togdheer waxa ka hadlay munaasabada xubno ay ka mid ahaayeen duqa degmada Burco محمد يوسف عبد الرحمن قدوميه ku-xigeenka gobolka Togdheer محمد ديري حيد قدوميها xilka wareejiyay سهل آدم محمد قدوميها cusub ee xilka la wareegay حسن متان عبد الله أحمد waxaana soo xiray madashaasi gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye محمد كاهن أحمد xilka kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha cusub dulqaad badan baa laga doonayay halkii uu xisbiga kulmiye gaadhay doorashadii hore hadduu dhibic ka hooseeyo ninka dusha laga saaraya adiga wey hadduu dhibic ka sareeyana ninka lagu ammaanaya adiga wey in ilaahay xilkaa ku waasto waxaan u mahadnaqayaa waayeelka xisbiga kulmiye talada dhallinyaradu way la ciirciirtaaye saacad kasta oo hawli nagu timaado garabkayga taagnaa gudoomiyenimada xisbiga waxaa lay dhiibay 2005 tobankaa sannadood ayaan gudoomiyaha xisbiga ee gobolka ahaa waxaad dhowranaysaa nabar aadan arkayn oo ku buka waxaa kuu imanaya mid kuu gardarooda haddaa istaado iska celi nabarkii baa ku damqaanaya xodonaysaa bilu xisbiga ka taga hawshan aanu xisbiga ee soo jireenka ah ee guulaha badan dhalisay ee madaxweynaha dhalisay guushaana waxaa keenay isku duubnida iyo taageerada xisbiga iyo sida loo maamulay baa keenay inaynu guulaysanno aan idinka codsanayaa sidii aad ballan qaadeen inaad fulisaan ballanqaadkaas waa in nala shaqeeyo nala taageero la iskaaga garab taago oo guulaha uu gaadhay ee uu kasbaday xisbigu asigu juhdigiisa ku lahaa asiga ciddii la shaqaynaysay ayaan ka markhaati furay halkan gudoomiyihii hore ee gobolka muddadii uu xilka xisbiga hayay inuu ahaa nin ku filan oo si fiican xisbiga hawshiisa u soo waday waayeelnimo iyo dulqaadnimaana u soo waday saxal waan ku ambalyaynayaa mas-uuliyadoo dhan ba horta dhanaca gudoomiyaha cusubna waan ku soo dhowaynayaa xilka waxaan leenahay allah ha kuga astura munaasabadan isugu jirtay sagootinta gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaysa xilli shirweynihii xisbiga kulmiye ay ka hadhay muddo kooban lana filayo inuu qabsoomo horaanta bisha November ee lagu soo foolle Ali Daahir Maxamed Boos TV-ga Universal Burco ciidamada cirka ee wadanka Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa inay duqaaymo lixaad leh ay ka geysteen wadanka Suuriya arintaasina waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha wadanka Faransiiska François Hollande uu hore ugu baaqay in ciidamada Faransiisku ay howlgallada ka qayb gali doonaan waxa lagu soo waramayaa ciidamadaasi inay duqaaymo lixaad leh ka geysteen wadankaasi war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee wadankaasi Faransiiska ayaa tibaaxaya in ciidamada cirka Faransiisku ay duqaymahaasi sii wadi doonaan waxaana uu sheegay in Faransiisku ay duqayntaasi uu kaga goleeyahay in la wiiqiyo kooxda mayalka adag ee la yiraahdo Islamic State ee ka dagaalamaya wadamada Suuriya iyo Ciraaq warbixin saxaafadeed ka soo baxday xafiiska madaxweynaha François Hollande waxa kale oo ay sheegaysaa in dagaalyahano ka tirsan wadanka Faransiiska oo ka badan 100 ruux inay ka dagaalamayaan ama ka garab dagaalamayaan kooxaha mayalka adag ee la yiraahdo Daesh
madaxweynaha faransiisku waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay sii wadi doonaan ciidamada faransiiska inta laga guulaysanayo kooxaha dhibaatooyinka ka wada wadamada Syria iyo Ciraaq waxaana uu sheegay in dagaalyahanada u dhashay wadanka Faransiiska ay beegsan doonaan ciidamada Faransiiska iyadoo la sheegay ciidamadaasi Faransiiska waxa ay baxsanayaan inay u badan yihiin kooxaha islaamiyiinta ee ka yimid dalalka dunida gaar ahaan wadanka Faransiiska ayaa la sheegay dad ka badan 100 ruux oo Faransiis dhalashadoodu tahay in ay ka dagaalamayaan wadanka Suuriya. intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray tan iyo intaanu dib u kulmi doono warka iyaga warka xiga waa Cawil Daahir nabadino.